بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu nahay naafadii martiini oo ay ka gubteen guriyuhu awoodna u waayay inay guriyihii ka gubtay ay dayac tirtaan ummadda Soomaaliyeed oo dibadda iyo dalka joogto waxaan ka codsanaynaa inay guriyahaas aan dhisaweynay aan samaysaweynay ay loo sameeyaan ay loo dadaan annagu awood waa u waynay ayaga walaalaha inaan ummadda Soomaaliyeed dibadda joogtay inta gudaha joogtaba waa in guriyahaas ay loo dadaan aan ka codsanayna ay la caawiyaan guriyahaas daboolkooda iyo daryeelkooda intaba laga caawiyaan ayaan ka codsanayna waxaan nahay dad maata jajaban shaqo aan qabsan shaqaysan waxaan qabsan waxaanu rabnaa inay guriyaha soo degaan walaalaha in laga gubto ay loo dadaan ay loo sameeyaan midaas aan ka codsanayna aniga aad ii jeedaan geedkaas hoostiisaan seexdaa maalin habeen iyo maalin awoodan ku guri waa waay roob ay igula doo halkaa waxaan doonaynaa inay laga caawiyaan wax loo qabtaan ummadda Soomaaliyeed ama dal ha joogaan ama dibadda ha joogaan loo soo gurmado wax la loo qabto bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaalo waxaan sheegaa dadka martiini oo guriga ku gubtaanahay oo guriga intaan dad muslimiin aan soo gurmadeen oo intaan soo gaarsiiyeen intaan la ka gaarsiisano laakiin hadda guriyihii wili waa noo feedan yihiin oo wax aan ku daboolana ma haysano waxaan u baahannahay waxna caawiyo oo guriga kor noo daboolo roobaan ku jirnaa qorax meel aan ka galna ma leh alxamdulillah horta wuxuu ilaahay keen alxamdulillah ilaahan ku shukrin oo ku xamdinay wax anaga aan sameysana ma ilaaha noo keenay ilaahayna waa ku mahdinaa inkasta oo ilmaheen ilaahay wax naga soo gaarsiinin ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin waxeeniyo dhan intay ku gubteen oo wax amaanta heesana ma lahan dharkeeni alaabteeni guriyaheen wixii dhan waa gubteen marka waxaan iga codsanaynaa wixii adika aan ugu caawin kartiin daboolka inaan ugu caawisiin ilaahay khayr hanaysiiye